Bismillaah. Halkan waxaan ku qabanaynaa tix gabayahoo magaceeda la yidhaahdo dhibic dhaqaale. Erey bixinta waxaa iska leh ninka lagu magacaabo Khaadumka Noolaha Maxamed Cismaan Cali. Dhammaan hal abuurayaasha way u bannaan tahay ama way u furan tahay inay wax ka yidhaahdaan tixda iyada ah. Anigana magacaygu waa Cabdulaahi Kaad. La soco dhibic dhaqaale. Indhaweyn ma soo dhigin murtidii dhumucda weynayde, war indhaweyn ma soo dhigin murtidii dhumucda weynayde, dhalooshiyo intaan dhabi qoron dhuxul ka soo saaro, oon dhamac galool soo shito nololka dheeraysto, dhibba iguma hayso haddaan diri dhambaalkiiye, hadal iyo dhammaantiina waani dhaliishaye. Dhabadkii dhawaaqa caways dhila weyn maqliye, dhidda dhogor waxaa looga dhigay qodaxdan dhaadheere, kama dheelmo geelana dhulkii dhaadanaan jiraye, dhalintaan aqaaniyo tolkay wayga dheeryahaye, dhankay dhaxantu iga haysa waan soo bandhigayaye. Ninkii dhadada roomoodaye dhanu raaray maalin, inuu la soo dheelmada ugu dhignayd looxe, sidii dhoolkii karameed haddaan xaydh ku soo dhigiye, haddaad hoosu dhuucdan xigmada kama dhergaysaane, balan dhuubka soo daro galshadan dhababay ceelkiiye. Intaan dhibic dhaqaalay dhul dheer kaga dhaacay waayo, dhul shisheeya oon dhaadanaynaan u dhaga tage, dhamaciyo kulayliyo intaan holac dhex qaadayey, dhalan dhoolka oonka intaan socod dhabaynayey, intaan bay dhuubteen araad dheef dhadhaamin waaye. Kolkaan dhinaca saarana hurdada iman dhakolkeedu, dhidin iyo dhammaajiyo intaan qodax dhex qaadayey, dharabkiyo qabowgiyo intaan baraf dhex jifayey, amaan ardhabacayeynayiyoyey dhadiga dhaafey, qofaad dhidar xulmoodana dhalil dhalaaday saare. Dhakafaarka awge intaan dhirif la soo toosay, cuntada dhanaan iyo macaan dheeli tirid weyday, inta saxan la ii dhoorayay dhuntu mari weyday, sidii dhugata geel qaba cadhiyo ama dhukanada, dhafooradu waxay ila goteen in la dhalanguure. Ilaayay ka dhere cadaab hooyaday dhabaye, intay subag dhimar dhanaan iyo intay subag dhitaynaysay, wareemar dhanaan iyo intay subag dhitaynaysay, may dhanaanka geeliyo karuur dhaylisa i siisay, dhirta caano laga keenayo dawa lagu dhacday, inaan lacag ka dhibana waa ii dhinayd weliye. Afartan dhali shanqabiyo ciil dhammaystirandhe, afar kalana sidii loo dhugtan dhinac ka raacsiine, qofkii dhibir qabo idil tilmaan wou dhammaystiraye,
dhagooliyo indhalo isagii reera dhaaqidoodhe soomaalida dhawaaqayga garan dhiiragaalintoodhe dhalanteed ka beendiya runtii oo isdhiina yaalla labada midkii dhaxal galan kugu dhigi looxe dhagiinay fura qalbiga xuma ka dheeraya ku dhasiga diintiyo sharciga eebbana u dhowray warun dowlad loo wada dhan yahay dhidibada waasno dhanqaryada ka dhowro sidii ubad dhaqaaleeya dhulkayaga waxaa dheeman iyo dayabka dhucara iyo duunyadan dhaqana ee dhayda laga malo dhirta malabka laga keena iyo daawadiyo dheebta iyo baayida loo dhinta waba kala dheere dhalintiyo cawiiskii wacna nabadii aan dhowro dhaqankeeni fiicna waran dib u dhawalyayno dhallaankiyo haweenkeenna aan cadow ka dheerayno dhaqsa oo la soo baxa shidaal dunida loo dhabsho dheeshii faqrigaan sidii carabta dheerayno wardhiishii faqrigaan sidii carabta dheerayno waxa laysku dhaafaa adduun dhaqasho weeyaane akhiirana waxaad dhaabsataa kugu dhigan looxe akhiirana waxaad dhaabsataa kugu dhigan looxe idinka dhulkiinii ka tegay dhoofna qayibaye badii dhuuxa weynayd wakaa cadowgu dhuuqaye dhansalaalaqoodana wakaa sidii dhurwayeedhye dhala leexdii hoosiyo hadday dhagixi qaateene burcad baanu dhowrada weynagu dhacayaane waa inaan ka dhidhina xumaanoon ka dhimanaye dhulka waxa ka soo baxay haddaan dheebsan kari weyno macirkaan ka dhowra inuu malabka soo dhiiqo tamayuluq dhanan iyo waxaa xabag dhalaalaysa obdhilasha gaadhi iyo waxaa ciid ku dhimbixiyey dhafaruur maluudkay dhigtana u dhurdoo dhuuqo duwankiyo madheedhkiyo waxay dheentu midha keentay gobka waxa ka soo dhacaya dhagaxaan dadsan nimcada ilaahay dhigayan cidina dhoorofin iyo baahida loo dhinta waaba kala dheere dhaxalsadee dhulkeennii qofaan dadaan oga dhiman ruuxe war dhaxalsadee dhulkeennii dadaan oga dhiman ruuxe idinkana dhilmaayiyo kud iyo kaaru dhimateeni anigana ilmaayiga dhiblayn sidii dhallaankii idinkana kud iyo kaar wakaadu dhimateeni anigana ilmaayiga dhiblayn sidii dhallaankii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخياري وانا دي سلامي دمانتين رياض نترامو وانا دي سلامي برامج كينا كصابسان قبايقا أنيقا قباي وايقا حدين يحي وادكم مهسنتين سؤاشينا يجوابها أصدافستين هداد ويديسين إن بدوان كاموسي عوا يعني كجوابية
gabay waa iga xiran yahay waxaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay ilaa maalinkii aan riyooday up to now 45 years plus gabay waa iga xiran yahay wuxuu iga xiran yahay halkeen deganahay waxaan deganahay jigjiga waxaan ahay Soomaali waxaan ahay reer jigjiga okay fiiri waxa garabkayga oo dhan fiiri Africa fiiri halka ma fasilayo inta ka badan gabay waa iga xiran yahay intii hore ee gabaday ayaydaan fasilin oo idaan shaandhayn oo idaan kala soo bixin naxwaha ku jira iyo xigmada ku jirta inta nin Soomaali gabayday horta gabayga meel inta badan waa nabcahay oo inta badan inta wiil iyo gabadh gablantay ama wiil dhintay ee aakhira jira ee ciida waxa cunsiyay gabay waxa qabriga geliyay gabay baa sabab ah haddii laga tahay waa qaybta fiican xigmadaha ku jira gabayga Soomaaliga miyaad sarifteen miyaad haadiseen miyaad ridqideen miyaad tuujiseen maya haddaan si kale u dhigo ilaahay kitaabka quraanka uu idin siiyay qiimiga leh quraanka miyaad barataan mise waad barataan mise waad iska barataan mise waad barataan ma u isticmaasheen in technology aqli horumarin dhibic dhaqaale jawaabtu waa maya sidaa darteed waxaan isku dayayaa gabaygii intii hore ee gabayday way gabayday inta dambe inaan idinku bedelo dhibic dhaqaale haddii laga tegi waayo waxaan dalbanayaa dadka ilaahay u sahlay gabaygow inaad bilowdaan dhaandabagaale inaad kasoo gagabaydaan weliba waan idin bilaabi dhaandabagaale iyo dhibic dhaqaale waxaan rabaa 1500 iyo 1500 iyo 1500 u dhaxaysa 1500 oo negative iyo 1500 oo positive iyo inta u dhaxaysa habeeniyo maalin maxaa u dhaxeeya isweydii adiga labeeb iyo qayr labeeb maxaa u dhaxeeya okay haddaan si kale kugu dhigo xurufta Soomaalida alifbeetada ayaan rabaa each 1500 iyo 1500 oo ah negative xagga negative-ka ama xagga positive-ka midkee badin doona hadhow marka labada marka ka soo gabaydaan ayaan hadda idin gelayaa inta u dhaxaysa taa dib inoogu dhiga ha ku wareerina 1500 oo negative 1500 oo positive oo dhaandabagaale okay ayaad ka soo gabaysaan waxaad kalood ka gabaysaan xurufta ereyga ha'da ah gabayga uu maro dhan baad ka soo gabaysaan meesha doona kula mareen xarafka ha'da ah ayaan kala qaadanaa positive iyo negative gabay maraya ha oo soconaya oo ama positive aan gelinayno ama negative aan gelinayno waxa kale iyadana aan rabaa dhibic dhaqaale qofka ugu horeeya nasiib badan ee bilaaba waxaana waa mid soconaya oo sidii aad ula baxdeen guba waa gubadii aad u magacawdeen ee magaca xun ee idin gubtay tii dhaqi lahayd ee bogsiin lahayd insha Allah dhibic dhaqaale waa magaca gabayga uu ku bilaabanayo dhaandabagaale waa sidiisa xurufta xaaraanta ha buu ku bilaabanaya tolka ayuu u furan yahay Soomaali Maryooley buu u furan yahay kabacdina waxaan tagi doonaa international gabayga waxa iskale Soomaali gabayga waxa iskale Soomaali waxaan tagaynaa international adduunka inaan qaadno gabayga inuu Soomaali iska leeyahay luqadina waa dhibic dhaqaale okay barnaamijka halkaas inoo soconaya waad ku maasantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخياري برامج كيني أها لبع دقالة أما دان دبقالة أما قبي أنا إسكالي إن إخياري وحمنا وعجلة دي لبات قبي وايقي حرية هاي أو وحا يقي حرية هاي وحن دونا يا إنان الصومالية إذن ويديو هرتبرك أهرس قبي وانا بعاه أوكي إن حدنا وانجع لهذي وانا بعايو إساقا آخرة أدري ويلبضن أهليي أدوك زو كورين لها واحد بدن isagaa hooyo kasta gablan waxaan leeyahay 90% wiilka Soomaaliga dhintay waxa dilay gabay inta kalena cudur ayaa dilay uu sameeyay isagu haynu soo qaadano oo casriyayno gabay waa iga xidhan yahay waxaan rabaa in la ii raadiyo ikhtiyaaray idinkoo raali ah waa umada afka Soomaaliga ku hadasha nin Soomaali ah meeqa ayaa la hayaa Soomaali ah oo gabiyay oo u gabiyay hooyadii sodohdii sodogii aabihii adeerkii abtigii habaryartii
suldaankiisii garaadkiisii malaaqiisii sheekhiisii qaraabadii iyo tolkii oo dhan u gebiyey. markuu intaa u wada gebiyey waa qabiil marka uu leeyahay reer Dhaandabagaale qabiilka uu ka yahay lafta hoose ee Dhaandabagaale ilaa meesha ugu dambaysa saa u soconaya ma jira mise waxaa laga soo bilaabaa qoyska kale hooyada kale habaryarta kale eedada kale. haddaad ii heshaan nin Soomaali ah oo ka gebiyey inta riximkiisa intuu u gebiyey tolkii u gebiyey ra'iisul qabiilkiisa u gebiyey sheekhiisa u gebiyey bi'ada marka uu degan yahay isagu beertiisa ka gebiyey haddaad soo heshaan oo dee si rasmi oo international uga gebiyey mid iska luuqa ma rabo. insha allah waxaan isku dayeynaa inaynu bilowno xuruuf 5-6 okay iminka 3 baan ogolahay inaan alifo ka bacdina dadweynuhu ay dhamaystiraan. wuxuuna ku bilaabanayaa 3 aan idin sheegay Dhaandabagaale iyo Dhibic Dhaqaale oo jaamacadda cagaaran labaduba ay socoto. haddaan si kale idinku sheego deep down beyond destination Desertland ama deep down beyond destination Greenland. marka maxaa loogu gabi waayey marka maxaa ma jira marka horeysa muxuu jiri waayey maxaa loo heli waayey nin u gabiya haddii horey aan loo gabiyin hadda ma la gabiyayaa haddaad diidaan hadda gabaydaan maxaa diidaya hadda inaad gabaydaan arrintan barnaamijkan dartii ma ku gabaynaa oo nin kastow ma ka soo bilaabi familkaaga gabayga ka kale ku caay jirtay ama ku xumayn jirtay ama ku lidi jirtay familkaaga kasoo bilow ka bacdina soco ilaa dhammaadka Raadin Turaab. haddii maxaa diidaya marka haddii taa la diido maxaa loo diiday haddii jawaabta aad haysaan isiya haddaydan ii haynin waxaa loo diiday waa dhabayaasha Dhaandabagaale ee qurmoon barafka qabow qondhada qaaxadooda. okay so ma aha marka dulmi culimadii soo ma aha dulmigan marka inagu ragaaday waa inaynu ku bedelnaa maskaxdeenan habkan ay u soo kortay bi'ada la qabsiga caalamka xitaa inagu adag yahay waa inaan bedelnaa. okay haddii la helo taa gabay idin bilaabaya haddii aad weydaan okay Dhibic Dhaqaale ayaa idinku bedelayaa. okay seen u ogolaanay inaan hooyo kale u gabayno cayno habaryar kale cayno oday aabba kale cayno oo adeer kale cayno abti kale cayno oo qabiil kale cayno oo sheekh kale cayno ugaas kale cayno oo suldaan kale cayno markaan keena cay weyne haddii taa la helo waan gabayaa. gabaygana wuxuu ku yimaadaa sida aan aaminsanahay asbaab fara badan ha ugu horeeyaan xanuun xuruufta xaaraanta ay ku badatay oo ilaahay aqli iyo xigmad siiyey giftina ilaahay u raaciyey iyo miyaanahna okay traditional manana Allahu a'lam waa gifti ilaahay bixiyo. okay waan gabi haddii taa la waayo waxaan idinku bedelay Dhibic Dhaqaale aan dhammaad lahayn. barnaamijka jaamacadda cagaaran waxaan u sadgaraynay ninka aad ugu necab tahay qabiil kasta aniga qabiilkayga ii sheega qabiilkayga hoose qabiilka ugu necab baynu ku horeynaa ka ku sixigeenu ku horeynaa nin kasta oo qabiilkaaga ii sheeg gifti baan ku siin qabiilka aad necab tahay baad siis adna aad siin. okay aniga haddii aan qof necabahay qofka aan necabahay baan ugu horreysiin barnaamijkan okay jaamacadda cagaaran marka adiguna sidoo kale ayaan kaa sugayaa. okay marka barnaamijkeenu halkaas ayuu ka soconayaa soo hela nin hooyadii sododii abtigii u gabiyey adeerkii u gabiyey markaasaan anna idin bilaabayaa. salaamu calaykum Raadin Turaab.